रब हंसता हुआ रखे तुमको तुम तो हंसने की السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada asxaabta ku xiran GMTech aad ay umahadsantihiin. Waxaan rabaa maanta inaan idin soo duubo video ku saabsan sida aad adiga ahaan ugu xiran lahayd ama sida u ogaan lahayd mobile internet oo ku xiran yahay internet wifi oo ku xiran yahay passwordkiisa. Waxaan ka wadaa mobile oo ku xiran yahay wifi password wifi ugu jiro passwordka si aad ku ogaan lahayd adigoon u isticmaalay tricks yar. waxaad mari doontaa kaliya laba step ayaa mari doontaa. labada stepka koowaad waxaad u baahan tahay in aad mobile ku xiran yahay aad qabato aad hesho wifi-ga rabtay inaad passwordkiisa ogaatid. waxaa laga rabaa inuu noqdo mobile oo versionkiisa uu yahay Windows 10. haddii uu ahayn mobileka aad ku xiran passwordka mobile ku xiran internetka haddii uu ahayn Android 10 kuma shaqeynayo farsamadan. Okay, inaad fahamto ayaa rajeynaya. farsamadan kuma shaqeynayso haddii uu mobilekaas uu ahayn Android 10. dad qaar way yaqaanaan sida mobilada ay u kala baxaan Android 10, Android 9, Android 8. marka haddii aadan aqoonin intaan kaa tusaya kusoo dhawaad casharka. ugu horeyn waxaan sidoo ku ogaan lahayd mobileka noocuu yahay versionku yahay. Okay, marka setting-ka marka soo gashid waxaad tagaysaa about phone meesha ku qoran tahay. about phone markaad ku dhufatid waxaad ka dooranaysaa software information. ku dhufatid kadib meeshan waxaad ka arkaysaa Android 10. haddii uu mobileka ku xiran aad rabtid inaad passwordka ogaato uu yahay Android 10 waad farsamadan way ku fududahay waad ogaan kartaa. laakiin hadduusan ahayn farsamada kuma shaqeynayso isku day mobile oo Android 10 ah. Okay, haddii aan stepka koowaad ku gudbo stepka labaad waxaad u baahan tahay application lagu magacaabo QR code. application-ka wuxuu ku siinayaa scan ayuu ku siinayaa. Okay, scan waxaa la yiraahdaa haddii aan ku macneeyo QR code tusaale ahaan hadda aniga wifi iguma xirna wifi iguma jiro kaliya waxaan isticmaali doonaa mobile kale waxaan ka sameyn doonaa QR code. Okay, mobile kale aan ku sameyn doono ma aha Android 10. haddii aan trickskan ku tuso haddii aad ma aragtid mobile oo ahayn Android 10 waxaa mari kartaa wadada aad aniga mar rabo ayaad maraysaa oo videogan kugu tusan rabo. hadduu yahay Android 10 kaaga oo kaleeto waad si fudud ayaad scan ku saari doontaa insha Allah. haddii aan stepka labaad aan u gudbo kaliya waxaad daaranaysaa wifi-ga aan haddii internetkayga oo xaafadda yaal ayaan daari doonaa. markii aan daaro waa isoo qaban doonaa waan ku tusi doonaa passwordka aan gelin doono iyo passwordka haduu soo bixi doono inay isku mid yihiin in kale. Okay asxaabta waa ujeedaan jaamac internetkayga waaye hadda waa ujeeda waa ugu xiran yahay. waxaa sameynaya forget ayaa leeyahay. forget markaad tirahdid meeshan waxaan idin tusi doonaa sida loo ogaado QR code-ka meeshaad ka ogaan lahayd scan ka saar lahayd. Okay, hadda passwordka ayaan gelinayaa waan idin tusayaa passwordka gelinaya iyo passwordka haduu soo bixi doono. Okay, ujeedaan asxaabta passwordkayga waa ka passwordka haduu soo bixi doono idinka indhiin ku arki doono. hadda passwordka aan ku gali doono aan ku xiran doono waa kana sababtoo ah waxaan rabaa inaan soo baxsado QR code-ka inta ku jiraan. Okay, connect ayaa leeyahay waa ku xirnayaa. ujeeda hadda waa ugu xirmay. markuu saan kugu xirmo oo aad rabtid inaad passwordkan inta ku jiro aad ogaatid kaliya waxaad u baahan tahay in aad sameyso kaliya calaamadan. hadduu mobilekaaga waan ku sheegay hadduu mobilekaaga Android 10 yahay waxaa kusoo qaban doona calaamada setting-ka camal ayaa taaban doonta. calaamada markii aad taabatid waa kana QR code-ka aan ku sheegayay waa kana QR code-kaas waaye kaas ayaa qabanaysaa. aniga hadda waxaan mari doonaa wadada hadda mobileka kale aan saaran rabo ma aha Android 10. labada mobile way kala duwan yihiin kan waa Android 10 kan kalena ma aha. Okay, aniga wadadan ayaan mari doonaa kaliya waxaan sameyn doonaa QR code-kan mobilekayga ku jiro ayaa waxaan sameyn doonaa screenshot ay ka qaadi doonaa. screenshot markaan ka qaado waxaan u diri doonaa QR code-kan sawirkan waxaan u diri doonaa mobileka kale sidaan ay u fududaato aan hadhoodi aan u galo aan scan u saaro. inaad fahanto ayaan rajeynaya hadalkayga. Okay, screenshot ay ka qaatay kaliya kadib mobile kale ayaan u shubay. Okay, QR code-kii waa kana waad ujeedaan haddii aad waan idin tusay QR code-ka waa kana kan ayaa scan marinaya. Okay, marka application-ka idin sheegaya daadi
waa idin dhahay applicationkan loo baahan yahay oo kan ah QR code kan waa scan waa sababtoo ah programkan hadda aan screenshot ka qaaday sawirka screenshot ka qaatay ayaan scan ka saari doonaa kadib meesha waxaan ka ogaan doonaa passwordka inaad fahanto ayaan rajeynaya hadalkayga okay hadda markii aan saan u saaro ujeedaan saan markii u saaro meeshan waxaa ugu jeedaa magaca inuu isoo qabtay passwordka daad aan gelinayn aad arkaysan inuu meeshan ka soo qabtay oo ujeedaa markaas kadib si fudud ayaa copy u leedahay kadib internetka ayaa tagaysaa kadib waad ku xiran doontaa passwordka waa inta ugu jeedaa nimco 143 waay haddaadan waa aragteen passwordka aan ku galayay iyo passwordka inay isleeyihiin saas ayaad ugu faa'iideysan kartaa haddii uu mobilka aadan qof u baahnayn aad dhihin passwordka ii geli oo kaleeto suun macnaha uu diidan yahay oo ku leeyahay passwordka ma aqaan oo kaleeto kadib fursadan trickskan ay u mari doontaa haddii aad video ka heshaan asxaabta like saara muuqaalkan asxaabtiin u share gareeya waa muhiim inaad wax ka ogaatid waxyaabahan ku qarsan mobilada oo Androidka channelkan waxaa kala socon doontaan waxyaabaha teknolojiyada fadlan iyo ku dhaafin channelkan subscribe saaro asxaabta u share gareey aad ay u mahadsantihiin intaan ku kulmi doono muuqaal noocan oo kale रब हंसता हुआ रखे तुमको।